السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقا كسو دوادا شارب بشو ميرو با جوجتان هدي هبين تاين هدي وعناتو هدي الصبح هدين تاين هدي وعناتو iyo xilli walba oo ay idin tahay bartana la dhageysanaysan waa bandhiga shaariba show oo halkan aad mar walba aad kala socotaan bandhiga shaariba show ay kugu soo gudbino arrimaha bulshada siyaasadda iyo wararka caalamiga wixii ku cusub markaas oo adduunka laga xiiseynayo haddaad ku cusub tahay subscribe saaro si aad mar walba aad noola socotid haddaba warkii hore war soo dhaaf ninkii la oran jiray malabsade oo maalin dhaweyd idaacadaha qabsaday oo saxaafadda qabsaday ayaan ku hormaraynaa insha allah biidnillaahi kariim oo maantay xabsiga magaalada muqdisho ciidamada booliska ay u taxaabeen iyo madaxweynaha dalkaasi maraykanka biden oo arrimaha afrika ka hadlayay arrimaha soomaaliyana sheegay in ciidamada maraykanku ay sii joogi doonaan waliba la kordhin doono dalka soomaaliya ka jooga warbixinadaas iyo warbixino badan baan idin haynaa ilaahay hadduu idmo waa shaariba show t v oo mar walba aad halkan kala socotaan qubanahana caawa labada qodob baan kusoo qaadanaynaa malabsade iyo maraykanka oo ciidamadiisii soomaaliya u daynaya markala soo dhawaada asxaabta qaaliga ah sidii aad la socoteenba taakeeye nin la yidhaahdo ayaa hadda ka hor afar xaas ku qabsaday saxaafadda afar xaas baan leeyahay laakiin ninkaasi dhibaataba ma lahaynba oo ninka la yidhaahdo taakeeye wuxuu ahaa nin meel degan oo afar guri leh oo afartaa guri u kala samaystay xaasaskiisa oo ku kala dhaqda balse waxaa soo baxay maalin dhaweyd oo aad kulligeenba saxaafadda aan uga jeednay oo soo baxday halkaan aan kasii daynay malabsade yar lagu magacaabo oo muqdisho kusoo bandhigay inuu saddex xaas qabo waliba uu isu qol ay seexdaan saddexda xaas asaguna qolka ku dhegan uu seexdo halkaas oo xajiyadu habeenkaas oo rabo in uu la cayaaraba uu qolkiisa ugu yeerto kadibna ay qolkii labadii xaas oo kala deganaayeen ay ku laabato haddaba arrintaasi dad badan baa waxay u qaateen si dhab ah oo annagu xataa aan ku jirno in uu ninkaan saddexdan xaas uu guursaday oo ay qolka u wada degan yihiin inkastoo aysan dhaqanka soomaalida ay ka baxsan tahay oo aysan saddex gabdhood oo la wada qabo isku qol aysan degi karin balse arrintaasi markii booliisku ay ogaadeen ayaa la soo doonay ilaa maalintii daraad ahayd dhuumashu ku jiray kadibna saxaafaddii buu la hadlay wuxuuna sheegay in uu branki arrintaas ay ka ahayd ama arrin maaweelo ah ay ka ahayd haddaba malabsade oo marka horena barahaya xaasaskiisa ayaan idiin soo sideynahayaa ilaahay hadduu idmo gabdhihii u dhihi jiray waan qabaa iga raadle hadda halkaa ku celiyo malabsade oo markaa gabdhihii ay beenta ku heshiiyeen markaasina baraya oo leh waa xaaskii koowaad waa xaaskii labaad waa xaaskii saddexaad iyo markii dambe asagoo beeninaya halkan idinkugu soo sideynahaya marka hore la dhegeysta gabadheeda ugu horeysa weyneed waa tana waxaa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax waa xaaska weyn ma sha Allah gabadhaas ku xigto waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waa xaaskii labaad gabadhii saddexaad oo guriga ugu dambeystina waa tana waa markaas markay beenta sheegayaan oo ay jilahayaan brank si ay waxay leeyihiin aan caan u noqono oo aan baraha bulshada aanu caan uga noqono ayaan arrintan aan u samaynay balse markii dambe oo laga daba tegay oo yarkii wariyaha soo wareystayna xataa been lagu qalday oo Universal TV ka socdo laftigiisa ay soo sideyn doona asagoo ka hadlaya qaabkii
ay u qiyaameen oo waraysiga ay u qiyaameen ayaa yarku wuxuu sheegay inay waalidkiis iyo dad walaalihiisa u wacay oo yidhaahdeen waa run ninkaani wuu qabaa saddexda gabdhood sidaasaa wuxuu yidhi wariyuhu aan ku tegey oo aan ku soo waraystay marka bal la dhegeysta wax yar bal wariyihiina asaga oo ka hadlaya qaabkii loo qalday oo uu waraysiga malabsade marka hore uu uga soo qaaday la xiriiraya waxaan aqaan ehelkiisa dad maaragtay aad isugu dhow yihiin dadkaas marka la xiriiray kadib waxay ii xaqiijiyeen arrintu inay jirto hadda qof maaragtay qaangaar ah oo dhalinyaro ah oo muslim haddii wixii lagu dhaartana ma ogtahay wixii maaragtay inaad aaminto ku qasban tahay waayo qofku ma dhigi karto waxaan waa been maadaama caddeynta ugu weyneed oo ahayd inuu waxaan gurigii ku keeno wixii jira ku tuso gabdhihii ayagoo maaragtay meel gurigooda joogo si dad maaragtay isyaqaano muddo isla noolaa kale u dhaqmaayo jikadii ku wada jiro arrintaas marka waxay ii caddaysay aniga maaragtay in waxaan ay jiraan haddaba waa kanaan balabsada oo asaguna beeninaya in soo wada oo leh waxa weeye waxaas waxba kama jiraan been iyo trufe ahayd annaga waxaan soo dhisnay ahaayeen aniga gabdhaha waxaan ku heshiinay si aan caan ku noqono iyo waxaasuu daldalahayaa marka waxa weeye xabsigaa la geeyey haddana xabsigu ku jiraa laakiin waxaa idiin soo sideynaya haddii ilahay idmo marka uu beeninayo oo uu leeyahay aniga arrintaasi brank bay iga ahayd iyo gabdhaha iyo anigu inaan kusoo caanbaxnaa rabnay waa tan ahe ila dhegeysta iyadana dhalay in aan arrinkan sameeyo waxay ahayd maxaa la yiraahdaa maadaama aan aniga iyo gabdhaha aan asxaab isku dhow ama dad walaala oo xiriir fiican ka dhexeeya aan nahnay waxaan ku wada ballanna waxay tahay in aan waxa waaye aan bulshadii aan wax cusub loo hor imaano marka maadaama aan si fiican maskaxdeena tuujinay aan fikirno waxaa noo soo baxday in aan arrinkan ku dhaqaaqno si aan anagana waxa waaye hadal hees badan ee uga dhalato oo waxa waaye nugula mashquulo intaasay naga heed laakiin waxa hadda aan isdhihi karnaa mistake koowaad aa gashan waxay tahay in aan tv-ga been aan u sheegno haddaba markaas aan iga soo sideynay oo malabsada oo halkaasi uu ka hadlayo oo uu leeyahay aniga been baan iyo gabdhaha ku heshiinay waxa weeye wuxuu waddo ku furahayaa dadkii soomaaliyeed in been barihii bulshada lagu soo galo oo xaasas aan jirin la sheegto xataa dad baa waxay leeyihiin shakiba waxaan ka qabnaa tii taakeeye xataa inay ahayd brank uu kusoo caanbaxayay laakiin taakeeye ilaa hadda intuu baraha bulshada soo fariistay ama gabdhihii la jilayay intay soo fariisteen ma aysan dhihin annagu brank ayaan ka wadnay arrintaas ama waxaan ka wadnay in aan kusoo caanbaxno oo baraha bulshada iyo youtube-yada aanu kusoo galno marka gabdhahani iyo ninkani waxay ku shireen oo ay ku sheekaysteen oo isku afgarteen in ay ummadda been ay u jiraan beenta intaas la-egna waa laga fiicaya haddaba halkaad kala socotaan waa shaariba show qubanaha shaariba show si sheergare saaxiibadana la wadaag subscribe kana saaro si aad mar walba aad noola socotid oo halkan arrimaha siyaasadda iyo meesha ay marayaan aan idinkala socodsiina mar walba haddii ilaahay u idmo iminkana waxaa inoo soo socdaa maraykanka oo sheegay in ciidamadiisi ay dib u joogahayaan dalka soomaaliya oo madaxweynaha cusub ee maraykanka Joe Biden oo sheegay iyadoo madaxweynihii horena Trump uu rabay inuu ka saaro ciidamadii Soomaaliya haddaba ku soo dhawaada barnaamijkaasi oo aan hadda idiin soo suudeyn doono haddii ilaahay u idmo balse waxaan ka horreysiinaynaa gabadhii يعني waxa anaga soo abaabulanay amsana aan isku soo raacnay laakiin midaas wax ma ka jirto Soomaha anaga waxaan gabdho walaalay hal qolna ma wada seexano gurigeena anaga ma deganin xasi cabdirashiid waa wiil walaalkeen maalintii oo yani wareysiga oo wiilashayno imaanayeen xitaa wallahi saa u muujin gurigan ina anaga aad deganahay maalintii oo dhan digsiga la raadina qaandad waa raadina cusbad waa raad wax meel lagu ogyahay ma jiraan Soomaha halka kala socotaa wali waa qubanaha shaariba show ciidamada maraykanka ee Soomaaliya joogay ayaa lagu qiyaasay 300 oo askari inay dhammaayeen kuwaas oo toobari jiray ciidamadii dalka Soomaaliya haddaba madaxweynihii jagada ka degay ee doorashada looga adkaaday Donald J. Trump ayaa sheegay in ciidamadiisa Soomaaliya uu ka saarayo oo uu soo gabagabeynayo joogitaankii halkaas ay joogeen iyo tababaradii ay u fidinayeen ciidamada Soomaaliya iyo gacansiintii dowladnimada Soomaaliya iyo Soomaaliya sidii argagixisada ay ula dirin lahayd iyo beesha caalamka halkaasi ay ciidamada Mareykanku u joogeen balse madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa hadda wuxuu sheegay in uu ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Soomaaliya arrintaas uu ka hadlayay fariin uu u diray midowga Afrika oo uu sheegay Mareykanku in siyaasadiisii ay soo laabatay iyo diblomaasiyadiisii caalamiga ahayd Afrikana uu xiriir weyn la samaysan doono oo waliba soo booqan doono intuu xilka hayo qaaradda Afrika
wuxuuna sheegay qaasatan dalka Soomaaliya in ciidamada Mareykanku ay sii joogi doonaan oo halkaas ay ku nagaan doonaan gacanna ay sii doonaan dowladnimada Soomaaliya sidii ay u dhaqaaqi lahayd Soomaaliyana ay ugu guri lahayd guriga iyo hoyga argagixisada ee lagu tilmaamo ama hoyga u ah wuxuu sheegay in al-shabaab iyo argagixiso badan ee Soomaaliya ku sugan Mareykanku uu godadkooda ugu gali doono oo ku ugaarsan doono ciidamada Soomaaliyana tababarkii ay siin jireen oo halkaasi uga sii wada doono sida aan la soconana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J Trump ayaa kala baxay ciidamadiisa Soomaaliya oo sheegay in aysan muhiimad u lahayn waxay Afrika ama Soomaaliya u joogaan ama ciidamada Soomaaliyeed ba ay u tababaraan wuxuu sheegay Soomaalidu inay isku tashadaan ciidamada Mareykankuna muddo dheer ay dalka Soomaaliya ku sugnaayeen balse halkaasi laga gaarin is-afgarad siyaasadeed oo Soomaalida dhexdooda ay gaarto haddaba haddaan la socotid Shaarib Bashow mar walba insha Allah subscribe ka saaro si aad la socotid warbixintaasna intaas ayaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh